muxuu marinka Hormuz u yahay halbowle u yahay tamarta adduunka. daawadayaal haddaba intaana u gudbin waxa sababta oo marinkani muhiim u yahay ama halbowle u yahay tamarta adduunka aanu isla eegno halka uu ku yaalo juqraafi ahaan. marinkani daawadayaal wuxuu ku yaalaa intuu u dhaxayso waqooyiga Iran iyo koonfurta Oman, sidoo kale wuxuu isku xiraa gacanka Carabta iyo gacanka Oman, kadibna wuxuu sii kala badweynta Hindiya. haddaba maxay ka dhigan tahay ama maxay tahay muhiimadda uu leeyahay marinkani? qiyaastii 20.9 milyan oo fuusto oo saliid ah ayaa marta ayaa la leeyahay maalintii, waana in ka badan rubac ganacsiga adduunka ee marabada. sidoo kale daawadayaal ku dhawaad 20 ganacsiga gaaska dabiiciga ah ee la dareeriyay ama loo yaqaan LNG ayaa sidoo kale mara badankiisu wuxuuna ka yimaadaa dowladdaasi Qatar. sidoo kale in ka badan 80 dhoofinta saliidda iyo gaaska ee mara marinkani waxay u jeediyaan suuqyada Aasiya ama waxay u jeedaan suuqyada Aasiya sida Shiinaha, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. waxa kaloo loo arkaa waxaa kaloo marinkani loo arkaa daawade marinka ugu cariiriga badan ee lagu gudbiyo saliidda. bariga dhexe wuxuu haystaa ku dhawaad kala barkeedka saliidda adduunka, qaybeen oo ka mid ahna waxa soo saarkiisa waxay ku tiirsan tahay in la marsiiyo marinkani si loo geeyo suuqyada caalamka. haddaba daawade haddii aanu isweydiino su'aal kale ma ku ekaan doontaa dowrkiisu in la marsiiyo oo kaliya tamarta oo kaliya mise waxa uu leeyahay muhiimado kale? haddaba jawaabtu haddii aynu ka jawaabno waa maya, oo marinkani wuxuu muhiimado kale u leeyahay adduunka, sida waxaa ka mid ah xasiloonida suuqyada caalamka, amniga silsilaha sahayda, iyo sidoo kale miisaanka siyaasadeed iyo kan istiraatiijiyadeed. haddaba haddii aan u gudubno xasiloonida iyo suuqyada caalamka, khalaase ama xiritaan ku yimaada marinkani wuxuu si degdeg ah u kordhinayaa qiimaha saliidda, wuxuuna saameyn ku keeni doonaa sicir bararka warshadaha dunida. sidoo kale haddii aan ka eegno xagga amniga silsilaha sahayda, ma ahan saliidda oo kaliya balse badeecooyinka iyo alaabo kale ayaa la marsiyaa marinkani. miisaanka siyaasadeed iyo istiraatiijiyadeed ee marinkani leeyahay waxaa ka mid ah marinkani wuxuu siinayaa muhiimad juqraafi siyaasadeed oo weyn gobolka bariga dhexe iyo gaar ahaanba dunida.